Assalaamu calaykum. Xilligan aan kula hadlayo dagaal goosgoosa waxa uu ka socdaa magaalada Beledweyne. Hiiraan State iyo Hirshabelle ayaa ku dagaalamaya magaalada. Waxaa laga baqayaa dagaalka in uu noqdo mid sii ballaarta oo ku fida xaafadaha Beledweyne. Halka la isku hayo iyo weliba sida ay wax ku bilowdeen ayaan rabaa inaan kula wadaago ee soo dhawaada. Xilligan waa saq dhexe. Saacadda 9kii ama 3dii habeenimo ayay sii cagacageynaysaa. Reer Beledweyne caawa oo dhan ma aysan seexan, dushooda rasaas ayaa ku socota. Waxa dhacaya ee la maqlayo ama reer Beledweyne ay maqlayaan waa dagaal u dhaxeeya ciidamada kala taabacsan maamulka Hirshabelle iyo weliba sidoo kale ciidanka maamulka iskiis isku magacaabay ee Hiiraan State. Xerada Lamagalaay oo ay ku yaalaan xarumihii maamulka ayaa la isku hayaa. Sida wararku ay sheegayaan, markii ciidamada Djibouti ay faarujiyeen xaruntan, waxaa gabi ahaanba la wareegay oo difaacyadii ciidanka Djibouti qoryo ku rakibtay oo gudaha u galay ciidamada la magac baxay maamulka Hiiraan State. Waxaana sidoo kale la sheegay in ciidamadii Hirshabelle xarumihii maamulkooda uu ku shaqeynaya haddii ay ahaan lahayd gudoomiyaashii gobolka iyo magaaladaba ay banaanka joogaan. Waxay isku dayayaan inay Lamagalaay gacanta ku dhigaan, hase ahaatee waxaa ku jira cudud ciidan iyo weliba difaacyo adag oo ciidanka AMISOM ee Djibouti ay markii horeba dhiseen oo ay adag tahay in xitaa 2 qof haddii halkaasi ay gasho 1000 askari inay la dagaalanto. Hase yeeshee waxaa la leeyahay caawa dagaalka goosgooska ah waxaa laga yaabaa inuu isu bedelo dagaal weyn haddii aanay la kala dhexgelin ama degdeg aan loo gaarin. Shacabka Beledweyne wadnaha ayay farta ku hayaan, rasaasta wiiftada ayaa xaafadahooda ugu tagaya, qof walbana dhulka ayuu xabadka dhigtay si aanay dhibaato u soo gaarin. Sida wararku ay sheegayaan, ciidamada Hiiraan State waxay ka faa'iideysteen maqnaashihii maamulka gobolka, gaar ahaan gudoomiyihii gobolka oo shir uga qayb galayay magaalada Jowhar. Xitaa diyaarad uu la socday ayaa loo diiday inay magaalada Beledweyne ka soo degto oo Hiiraan State waxay ku hanjabeen in diyaaradii soo qaada gudoomiyaha Hiiraan ay gabi ahaanteedba dhulka soo dhigi doonaan. Waxa taasi ay keentay in diyaaradihii oo dhan ay diidaan gudoomiyaha inay soo qaadaan. Waxaana la sheegay in uu safar dhulka ah ku soo galay magaalada Beledweyne, taasoo keentay in xiisadda caawa taagan ay dhalato. Maadaama ciidamada Djibouti ay arkeen taagtaaga iyo cabsida labada ciidan ee Hiiraan State iyo Hirshabelle dhexdooda ah, iyaguna waxay go'aansadeen inaanay ku dhex dhiman oo way u faarujiyeen xarumihii maamulka ee Lamagalaay. Taasna waxay keentay in Hiiraan State ciidamadeeda ay isku faafiyaan halkan, iyada oo haddana la sheegayo labada dhinac in dagaal goosgoosa uu dhex marayo. Yacni dagaalka ma xoogana, balse waa dagaal goosgoosa oo rasaas ayay isku ridayaan. Mana jiro ilaa hadda wax khasaare ah oo la soo wariyay. Xilli kasta waxaa la filan karaa in waxyeello ay ka dhalato maadaama dagaalka uu u muuqdo mid si tartiiba ku bilaabanaya. Xaaladda lama saadaalin karo sida ay noqon doonto, hase ahaatee xilligan aan kula hadlayo magaalada Beledweyne xaalkeeda cirka ayuu marayaa oo rasaas culus ayaa magaalada ka soconaysa. Fadlan aan u duceyno shacabkeena ku nool magaalada Beledweyne. Aragtida qaybta hoose commentiga noogu reeb, muuqaalka share garay, soo dad badan u gaar mahadsanid.